walaalka muslimka ah hooyada adiga ku dhashay haday nooshahay oo joogto waxay hooyada kaaga baahan tahay qalbigeeda inaad dhisto baari u noqotid warkeeda maqashid la tashatid ku xidhnaatid wax tartid bariidisid ku dhadhawaatid la sheekaysatid la saaxiibtid hooyada qalbigeeda inaad qalbigeeda ilaaliso oo qalbigeeda dhisto qalbigeeda kabto waajib ay kugu tahay walaasha kula dhalatay walaalka kula dhashay xaaska ku dhaxday ilaahay ubadka kaasi iyo aqalka ku joogto kulligoodba waxay u baahan yihiin qalbigooda inaad ilaaliso qalbigoodana aad kabto hadii wax ku yimaadaan ehelkaaga qaraabada iyo riximka aad ka dhalatay xaajada iyo baahiyaha iyo duruufaha ku imanaya inaad wax kala qabato kabto walaalaha muslimiinta dadka jiiraanka ummadda meel kugula nool cidii ku soo mudataa intuba iyaduna waa caynkaas oo kale waana arrin wanaagsan oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam habdhaqankiisa taariikhda siirada markaad fiiriso ajaa'ib baylaade الفردوس الأعلى مركا جبر الخواطر ذاتك إن خواطر تودا يدرين كودا يقلبي كودا لكبو وقلبي الله لصو وشيء كمد عبادات كإله اللوغو دواد وشيء عبادة شيء عبادة أوي إله اللوغو دوانيو ذاتك قلوب تودا وقلبي تشبك كي مادة lakabo si qalbigoodu dadku u dhismo oo aanay u quusanin oo hadii ilaahay ku roon yahay dadku aanay ugu imanin qofku inuu iska fadhiisto oo niyad jabo sida awgeed ba shariicadu waxay ka dhigtay shay cibaado ah oo cibaadaadka ilaahay loogu dhawaada kamida inaga dhaqankeena marka la eego mujtamaceena iyo deegaan ahaan runtii ma garanayno arrinkaasi muhiimada uu leeyahay badankeenu dadka qalbiga loo dhiso oo maxaan ku niyada loo dhiso qofkii masaa'ib iyo hawlo la soo gudboonaadeen oo qalbiga loo dhiso waa mas'ala inaga tabcigeena iyo dhaqankeena iyo macaamilkeena aan ku dhex badnayn kuma dhex jirto nasiib badan kuma laha arrintaas tabci yara adag hadal adag bay'ad adag weeyaan inaga waxaynu sida awgeed ba waxay muhiim tahay marka in la isku baraarujiyo oo laga hadlo mesela hadda waxaad arkaysaa qof baa xanuunsanaya lagu sheegaya wala soo booqanaya qofkii baa loo tagaya warska waran hebel waa xanuunsanaya xanuunkaas ah xanuunkan odayga hebel akii dilay way hebel buu dhintay xanuunkana kama kicinba ka kale wuxuu leeyahay odaygaas kaliyaad maqasho islaantii heblaayay miyadan maqal kaasay u dhimatay kii marka bukaya jiifay ka waran marka niyadiis marka lagu soo arooriyo laba dhintay oo xanuunkan u dhintay yani waxa weeye xanuunkii ba xanuun kale ugu darsamaya sida awgeed waxa la rabaa la ba'sa tuhur rasuulku soo qalbi ugu dajin jiray dib ma laha waxaan dareemaysaa xanuuna wax dhiba ma laha adiga hadda dib buu kugu hayaa waa run وحنونكو ديبو كوغو هيا وعافيمادكاغي iyo awoodadii iyo jirkaagi iyo dareenkaagi iyo xooggaagi nusqaan baa ku jirto wad kaari xanuun baa ku haya laakiin marka loo eego ilaahay agtii waxa aad ka helayso dambi dhaafa xasanaada dhawaanshaha ilaahay u dhawaanayso jaceelku alla kugu jeclaanayo ajarka kugu socdo intaad xanuunsanayso wax la qiyaasi kara ma aha marka nabigu wuxuu oran jiray la ba'sa tuhurun insha Allah dib male ونظيفين إلهي كن نظيفين ودم بداف ونبي قرن شري صلوات الله والسلام عليه سيدا وجد بأخلاق ذا سيدقن كاستك قلوب تودا إن لكبه ونية شبكة يا قلبي شبكة ضدك لقى إلهيو والشيء عبادة ودقن كي رسوشة ودقن كي نبيده ودقن كي صحابة ودقن كي علماء ودقن كي دعاء ودقن كي أئمة إسلام كسوام مرتي ودم ويان sida awgeed in la isku baraarujiyo gaar ahaan waqtigan maanta aynu joogno waqti adag oo fidmadiisu badan tahay subaxii waagiisu bariyaba wacdarihiisa leh iyo sanadkii dhashaaba mashaakil oo rasuulku tilmaamay aakhiru zamanka qofka muslimka ay waxa dhacaysa in fitantu markay iska daba timaado uu qofku naftiisa iyo iimaankiisa u baqo oo yiraahdo
wallaahi tani waa tii aan ku bixi lahaa wartani malaha waaba tii halaagi lahayd oo diintayda wax weynii geysan lahayd uu qofku baqanayo fitan caynkaasaa iman doono nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa waxa maanta ina haysta ilaahay baynu badbaado iyo weydiisanaynaa inuuna ilaaliyo subxaanahu wa tacaala sida awgeed arrinkaa isaga ahi inaan isku baraarujino waa lagama maarmaan waxaa iminka sanadadan batay xanuunada buufiska waxa la yidhahda stress baa qofka ku dhacay baa lagu leeyahy buufis baa qofka haya waxaas waxa weeye niyad jab ku yimid wuxuu doonayay oo waayey ama wuxuu haystay oo gacmihiisa ka baxay ama dhib iyo culays ku yimi oo cid ka caawisa aanu helin naf iyo shaydaanna intay ku keliyaysteen ay markaa qofkaasi dhibaato weyn u geysteen shaydaanku waa cadow naftuna waa la saaxiib cadowgaaga iyo saaxiibkiisu cadowgaaga weeye sida awgeed marka dadka inta badan waxa buufiska iyo isla hadalka iyo niyad jabka iyo wax ku ridaya waa ka caawin la'aanta iyo ku baraarujin la'aanta in qalbiga iyo niyadda loo dhiso marka qaarkood qof baa laga yaabaa eray cay ah maanta waad aragteen social media wax lagu qorayo dad baa u soo fadhiya dadka inay caayaan kaliya anu waxay ka helayaan garan maayo dadka inay caayaan kaliya u fadhiya meeshaas markuu dadka caayo afka ka buuxsado ka dhargu wuxuu kula ikhtiyaaray meel fog gaarsiiya sheer gareeya ummadda ku faafiya hadda waa nin dadka caayo kula dadka ila cay marka waxaasoo kala buuxo marka dadka qaar baa dadku isku qalbi maaha qof baa haddii la caayo oo xaggan lagaga hadlo xaggan laga caayo xaggan laga caayo social media la soo dhigo wuu khalkhalayaa markiiba qofkaasoo kale wuxuu u baahan yahay in maaragtay la dejiyo warqacayda bini aadanka hadduu ku caayay xag ilaahay lagaama caayin xagga samada lagaama nicin malaa'igtu kuma nicin ninbaa iska hadlay ninka hadalkiisu waxna kuma yeeli karo adna kuma hayo janno iyo adduun janno iyo naar wax alla wuxuu gacan kuugu hayaa ma jiro bal isagaaba kuu shaqaynaya isaga ayaa kuu shaqaynaya wuuna kadeedan yahay isma ogo oo meel xun buu ku socdaa ilaahay waa halaagaya subxaanahu wa tacaala marka ay fitantu dhacdo mararka qaarkood waxaa arkaysaa kuwii diinta lahaa ee aqoonta diimeed lahaa ee laga yaabo in mustawa fiican ka gaareen inay iyaguna kuwa qaaqlayaasha ee qayliya dadka caaya warkoodii intay dhegaysteen ilaa wixii xeraa lagu wada jiraa xerada marka lagu wada jiro xeeraa wax lagu wada cunaa ilna biyaha laga wada cabaa wixii bay marka doc ka soo gelayaan waxaa laga yaabaa marka beentii iyo caydii ee dabdarradii ay wadeen dadka qaarkood inay ku saamoobaan si aanu isagu dareensanayn oo hadhow aad aragtay ninkii wadaadka ahaa ama aqoon-yahanka ahaa ama qofkii aad taqaanay wanaagsanaayo berita soo caaytamayo halkan fadhiya qof aanu dhiig iyo dhaqan iyo waxba aanu ku lahayn iska caayaya xalla wuxuu ku caayayaan la garan maayo marka dad baa inta la caayay caydii qalbigooda ku dhacday noloshoodu burburisay baad arkaysaa mid baa inta la dacaayadeeyo mid baa dhibaata ku imanaysaa oo geeri ku dhacaysa oo geerida markay ku dhacdo xanuunka badan aanu helaynin cid qalbiga u dhista markaasaa laga yaabaa inuu cibaadadiiba ka tago oo xaggii balwadda iyo balaayada u baydho ayaa dhici karta oo khalkhalkii uu meeshaa galo mid baa waxaad arkaysaa intuu waxyaabo xaaraana ku yara fakadaan cid soo qabato waaniso wax u sheegay markuu waayo inuu sii fogaadaba oo meelo khatara marka dambe gaaro marka in dadka qalbiga loo dhiso oo qaab diini ah loogu dhiso ummadda si aanay xanuunno ugu dhicin oo ilaahay uga quusan oo diinta uga fogaanin waa shay lagama maarmaan ah oo shareecada islaamka ku jirta oo haddii ilaahay kuu roon yahay shay cibaado ah oo cibaadaadka waaweyn ka mid ah waxaan soo qaadan doonaa tusaalayaal kitaabkeenna qiimaha badan ee qur'aanka ah ku jira iyo axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo kulligeed ka warramaysa sida allah subxaanahu wa tacaala uu qalbiga ugu dhisay dad qalbigoodu wax ku yimaadeen iyo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam maalan alimaamu albukhaari kitaabkiisa saxiixa wuxuu soo arooriyey xadiid albaraa bni caazib alansaari رضي الله تعالى عنه ورنيه وحلي البراء بن عازب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عمرة ذي القعدة رسولك مركي أبحي عمرة ذي القعدة رسولك سيدي سبا أفر شير عمرة يستي هل مرنا وحد شيء صلوات الله وسلام عليه أفر جربو عمرة يستي أفر تجارة عمرة يستينا أفر تبوحو عمرة يستي بشد القعدة ليلة هذا وبشان صنفرتا كدن بيسا inagu maxaynu nidhaahnaa sida taalibay soomaalida waxba yidhahdeen sooma waa bisha dilqacda la yidhaahdo bisha dilqacda ayuu 4 biloodba rasuulku cumraystay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh 4 jeerba hal marna wuu xajiyey
sababta hal mar inuu xajiye keentani waxa weeye magaaladii Maka de Quraysh iyo kufaar Quraysh baa haystay sanadkii 8aadna waa laga furtay sanadkii 9aadna Abu Bakar iyo rag saxaabo badan buu rasuulku diray sanadkii 10aadna wuu tugo waa xajiyay markuu xajka ka soo noqdayna 2 bilood iyo 22 habeen ka nabigu waa dhintay kaleey salaatu wasalaam sida marka xajkii kale baba gaadhinba salawaatullaahi wasalaamu alayhi marka wuxuu leeyahay markaan umrada u baxnay tabi'athu ibnatu Hamza waxa rasuulka soo raacday oo ka daba timi inan uu dhalay Hamza radiyallahu ta'ala anhu ardaa wa nabiga adeerkii xagga kale rasuulka iyo isaguna isku naas bay jaqeen oo xagga nuugmadana waa ka walaalo waana isu adeer inantu marka waa inan yaro aan 10 sano wali gaarin wahiya taqulu iyadoo leh yaa cammi adeer hada waana ilma adeer waana u adeer marka xadiista ku aragtid inantan oo rasuulka adeer ku leh waa aabaheed oo rasuulka adeer u aabay naas wada jaqeen marka de adeer buu yahay oo aabaheed iyo isaga naas wada nuugay saasay marka u leedahay yaa cammi rasuulku marka ma maqlin hadalkeeda falam yasma'ha rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku ma maqlin fatanaawalaha caliyun waxa gabadhii qaaday oo gacanta qabtay cali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anha fa akhadha bi yadiha gacanteedu qabtay wa qala li fatima oo oridi cali ahayd oo la socotay radiyallahu anha ayaa wuxuu ku yiri dunaki ibnata ammik ihmiliha qabo in adeerta oo qaad si fiican u hagaaji gabadhan hagaaji dhaqaale wacaynkan جعفر بن أبي طالب ماشى مريا أو خذ نينك اللي يراد علي الأول على أي ولا ليهين مركع علي وحو قباه إن أنت رسولك عليه الصلاة والسلام جعفرنا رضي الله تعالى عنها قبض هبريرتيت رمى أيو قباه جعفر رضي الله تعالى عنه مركو أركي يسقون قعنتي كلوفة أمسك بالطفلة إن أنت بو قعنتي كلاس نقبتي وقال أنا أحق بها ورولا الأنيقا مضن إن أنت قاضو وأقل كيغا أنجيو أنيقا مضن وهي ابنة عمي لبص بوضبا وأذيركي إن أنتيسي وحمزة دالي وخالتها تحتي هبريرتي نوان قبا هو يدد على لطيف سطي أيان قبايو أقل كي شوكتا صلبني هلكا ما همركا فرآهما زيد بن حارثة نين لا يراهدو اسنا ميشا مريي ayaa arkay arinta dhexmartay cali iyo walaalkii inanta yarna ku saabsan zaydna rasuulku wuu jeclaa isaga iyo aabihiiba waana xoreeyay zayd markuu arkay waqala ibnatu akhi walaalkay inantiisi weey hamza marka ka wada yaani hamza oo walaalnimada uu sheegayo waa islaamka xaqiis ee walaala ku ahaayeen faqtasama fiha ali wa zayd wa ja'far gabadhi waxa ku murmay saddexdii saxaabi laba walaala ah iyo zayd ba ku murmay ana qaadaya ana aqalkayga ku koraysa la geenaya aniga doodba meeshii ka dhacday rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa wuxuu ka war helay dooda meesha ka socota iyo tartanka cajiibka ah nin waliba uu ku tartamaya ina Hamza inuu qaado oo aqalkiisa uu geeyo oo si fiican u hagaaleeyo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sameeyay marka amsaka albinta min yadiha inantii buu gacanta qabtay وقضى بها لخالتها وحنا وحكمي هبريرتيد ومركا يا قبيبين هبريرتيد جعفر باقبي وعلي ولاله اي جعفر وقبين انت اقل كجي لبدي نين كله xogaa de wixii ay rabeen iyo qalbigoodii waxba gaarisama oo waxay oranayaan de talab rasuulka idinkaaba cali wuxuu leedahay ugu soo horeeyay maxaa saan loo yeelay markaasuu nabigu sababtu ugu dhiibay horta u sheegay wuxuu yiri الخالة بمنزلة الأم هبريرتو وبوسك هويدي جوجتا هبريري وهويو marka de islaan loo dhaafinayo inantan aqalkeeda la geynaya mar hadii habaryarteed ba joogto in adeerkeedna qabo ma ba jirto saasan horta inanta aqalka Jaafar ugu dooday labadii nin ee halkan taagnaa saxaabada aha marka rasuulku wuxuu rabaa inuu qalbiga inuu u dajiyo rabaa oo xooga aanay Jaafarna eegin xaqiisa rasuulka xaqiisana soo eegin markaasuu nin walba gaar u la hadlay faqala li ali wuxuu ku yiri radiyallahu anhu anta minni wa ana mink ali horta ma soogtay sida adabaniyo laba ninoo isku banaan baynu labadeena aniga adiga mid tahay
aniguna adigan ka mid ah inanti dawrkeed ma joogaba mar hadii rasuulku yiri aniga adigu isku qof baynu nahay de meel ka wacan meeshuuba doonayay meel ka wacan baaba loo sheegay aniga adigu qof quraynu isku nahay anna ka mid baanahay adiguna iga mid maat qof kaliya isku nahay jaafar buu hadan rasuulku eegay sallallahu alayhi wa sallam qaala ashbahta khalqi wa khuluqi jaafarow aniga sidaydaba ninka dhaqankayga iyo abuurteeda saxaabada ninka iigu ekaansha badani waa adiga xagga dhaqankana iyo akhlaaqdana ninka iigu shabahaad badani waa adiga saxaabigina waa qabooji samaaragt nin waliba isagoo faraxsan buu halka u dhaqaaqay calina waxa la yiri aniga adiga mid tahay anigoo kala tahay jaafarna ninka iigu eg xagga ekaanshaha xagga dhaqankana iigu shabahida badani waa adiga jaafar oo baa la yiri nin walba isagoo murtaax u dhaqaaqay thumma nadara ila zayd buu nabiga eegay sallallahu alayhi wasallam oo yiri de walaalkay aan islaamnimada walaalo ku nahay ba inanta dhalay halaysiiyo anta akhuuna wa mawlana zayd oo adigu walaalkaya tahay kiyaanu xoreynay aanu jeclayn baa tahay nin aad u qiimo badan baa tahay marka u fiirso rasuulku mowqifkaas saddexdan inay saxaabada ahi dhex maray akhlaaqda wanaagsan iyo qaabka mid walba qalbigiisa rasuulku u qanciyay salawaatullaahi wasalaamu calayhi sida awgeed qalbiga dadka oo loo dhiso waa shay cibaado ah oo naftu u baahan tahay marnaba aanay ka maarmaynin laakiin cidii aqoon u leh fahmaysa ayaa muhiim ah arintaasi quraanka kariimka way ku cadahay xadiiskan hadda hordhacun baan ka dhigayay sunnaha nabigana sallallahu alayhi wa sallam way ku cadahay bal quraankan jaleecno soo qabo suuratu zukhruf suurada la yiraahdo aayada 38 u fiirso aayadaas nabiyullaahi ibraahim sida ilaahay qalbigiisa u kabay god baa loo qoday dab baa lagu shiday kalimatu tawxiid laa ilaaha illa allah ayaa lagu dilayaa nabi ibraahim oo godka loogu ridayaa ilaahay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un kalmada tawxiidka ilaahay wuxuu ka dhigay kalmad baaqi noqonayso haraysa oo nabi ibraahim isaga dabadi anbiyada oo dhan isaga ka farcameen ilaa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam laga soo gaaro kalmadiisa ilaahay baaqi buu ka dhigay adduunka intuu jiro kalimatu tawxiid iyo cid ka soo jeeda taranka nabi ibraahim inay gacanta u qaado oo anbiyadii rasuushii u horeysay nabi maxamed u dambeeyay ah iyo ummad muslim oo kalmada haysato ku dhaqmaysa ayaa ilaahay ka dhigay kalmada subhanahu wa ta'ala sida awgeed markaad u fiirsato nabi ilaahay soo diray ma jiro rasuul ilaahay soo diray ma jiro إلا وحو كسو بحي ترنكي إيو دريدي النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجة كالي سورة القصص آية طبنات إلهي وحو تلمامي نبي موسى هو يدي إسلام أم الشيء وسقال بلد عرور المعلوشة كسيدي ومركا يساعد الشيء اللي يري إنن كاغا صندوق كريد وبيغانا كريد بالكورنا ديو سوارنا هذاك ما سقال بلود أوركي كسيدي مركا يومشا اللي يري إنن كما ومشاها كريد صندوق أنا هدي لورا الله حتى جيد هوستي ديك أمام ميل لي وحبي أهان لهيد وبيغا كريد بالير وبيغا واحد كوشيرا واتقنا يحاسبها كوشيرا بهالو دنبا كوشيرا بعض ما قبوعه هل قدم كسي بالير إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يسقط المامية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نبي موسى هو يدي قلبي جادي وحو مقضي فارغا مدمرا ابن كثير مكو آيات فسر أيوه تفسير كيس وحوليه فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى وحال وحي قلبي أي كهيسي cid kale ay jeceshahay iyo lixjecla kale iyo wax kale ay rabtay oo dhan qalbigeedii uu ka madnaaday Muuse kaliya jaceylkiisa mooyaane inankeedii Muuse wixii kale way iska dhigtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu yeelay marka u fiirso qalbigeedii buu kabay fi suurati al-qasas aayada 13 faradadnaahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa nu usoo celinay نبي موسى هو يدي سي قلبي جيدو أدقو إشيدو أقبودو مروق أنا يواركين با إلهي سبحانه وتعالى وأنا أمروقونين سيلاقي قلبي جيدو تشيني سمارت سبحانه وتعالى والله سو عليي ديس قرآن كاتكو أركتينو وشيكا ديرو إن أنت يدي إيو وما ركتي
qof nuujiyaha alla doono la yiri iyo sheeko dheer oo quraanka ku cadweeyo maqsuudka waxaan uga jeedaa anigu qaabka ilaahay qalbiga u dhisay subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nabigeena sallallahu alayhi wa sallam rasuulku markuu maka lagu dhibay oo aad loo dhibaateeyay Taif buu aaday Taif markuu tagay isaga iyo nin saxaabadiisa kamida Israaciil maxaa dhacay wati la soo baacsaday maatadii lagu kiciyay wati la shiiday wati la dakhray wati dhiig laga sii daayay madaxa iyo gomadaba lagu garaacay wati malagii loo soo diray buuraha Jibriil wada socda oo ka dalbaday wixii aad tiraahdo aqbalayaayo buuraha waa la isku aaburaya qolada tan wati hadalada qiimaha badan rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu diiday in la halaago waatuu soo noqday laba qof oo udub dhexaad u ahaa dacwadiisa iyo talada diinta labadiiba isku sanad bay geeriyoodeen adeerkii Abu Talib iyo xaaskiisii Khadija murug weyn baa rasuulka marka ku timi sida awgeed baa taariikhda islaamka ama siirada sanadka waxa loo yaqaan aamul huzni sanadkii murugada way nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu damcay marka murugooyinka badan rasuulka ku yimid inuu ka fudaydiyo oo qalbigiisa kabo maxaa marka loo diyaariyay nabiga rihlatul israa'i wal mi'raj caalamkan uu ku yara murugooday hawla badan kaga yimaadeen gabigiisa inta laga qaado ila samaawaati al-ula samada in loo qaado si toosa ilaahay u soo wada sheekaystaan subhanahu wa ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina alla wa ahad ka xumaan dhanka nasahan subhanahu wa ta'ala allahas adoonkiisi dheelmiyay goor habeena masaajidka xurmada leebu ka qaaday masjidka baytul maqdis yuhuudu haysato ilaahay gacmooda ka furfure ayaa ilaahay geeyay oo alladii barakna hawlahu saajkaas oo aanu barakaynay hareerihiisa oo dhan si aanu u tusino aayaadka yaga waaweyn watii rasuulka shanta salaadood loo soo dhiibay waatii jannada la tusay waatii naarta la tusay waatii toddobada samaawaad sama walba lagu soo dhaweeyay nabiyadii joogay isa salaameen isbariidiyeen dabeetana maaragtay nabiben sama u sii dhiibay waatii samaawaadkii la dhaafiyay waatii jibriil ka haray waatuu kor u socday waata ilaahay wada hadleen waatii salaada loo soo dhiibay waatuu soo noqday nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh taasina waxay ku tusaysaa qaabka quraanku u tilmaamay qalbiga qofka dacwada iyo daaciga ah ee diinta ka shaqaynaya waxyaabo culaysya kugu imanaya oo masaa'ib ah ciidii dadka ku xigtay xagga ama dhashid ama ay kula dhasheen ama diinta iyo dacwada saf aad ku wada jirteenoo dacwada iyo dadaalkeeda aad ku wada jirteen oo isweheshateen oo odaya inaan isugu ahaateen oo sheekh iyo arday isugu ahaateen oo walaal iyo walaalkii isugu ahaateen waa la oofsanaya waa la qaadaya masaa'ib baa dhacaysa ilaahay aduu ku eegaya haraya marka ka horeeyay waatigi adiga haray iyo bal xaalkaaga iyo imtixaanka baa lagu eegaya qalbigaaga inaad diinta marka u eegtaa la rabaayo qalbiga aad adkaysato oo aadan qalbi jabin oo khayrkii iyo dacwadii iyo diintii aad wadid wadadaas mustaqiimka ahi halkaas rasuul iyo nabiyo iyagoo haya kolba midkii waqtigiisu dhamaaday meeshii ilaahay u qadaray buu ku dhintay adiguna waa inaad wada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu damcay dumarka muslimiinta guud ahaanba inuu qalbiga u dhiso marka xagga taranta uu ka hadlay Allah subhanahu wa ta'ala xagga taranta markuu ka hadlay markaas ilaahay wuxuu ka waramay inuu isagu bixiyo taranta guurkan waa sabab laakiin awlaad lagu siiyo waa wax ilaahay isaga gacantiisa cilmigiisa iyo qadarkiisa ku salaysan markaas ilaahay wuxuu horeysiyay hablaha iyo inamada hablaha la horeysiyay fi surati ash-shura ayda 49 yahabu liman yasha'u inathan cidda uu doono qoysaska isqaba cidda uu doono habluu siiya oo ku arsaaqaayo gabdha u dhasha wayahabu liman yasha'u dhukur cidda uu doonana wiilal buu siiya ku arsaaqa oo yuzawijuhum dhukranan wa inathan ama haduu doono alla way isugu daraayo koox wiilal iyo gabdha buu qoyskaas siiya wayaj'alu man yasha'u aqiman cidda uu doonana wuxuu ka dhigaa madhalays maxaa lagu gabagabay innahu alimun qadir alle waa ahad cilmi badan oo wax jaan gooyo wax qorsheeya
cilmi iyo qadar iyo qorsha wixiisu ku socdaan alle subxaanahu wa tacaala. qalbigaa la dhisayaa marka alle subxaanahu wa tacaala sida uu u warramayo subxaanahu wa tacaala wiilasha iyo gabdhaha iyo bixintooda iyo ciddii reer yeelata iyo haddii carruurta hore loo yara waayo iyo qorshaha ilaahay uu qeexayo in nolosha aad ku dhistid baa la rabaayo. qoysku markuu dhismaba haddii sanad iyo wax laysu dheli waayo waa inaan la qalbi jabinoo qoysasku aanay burburin. sababtu idinku waa la timaadeen, ilaahay barya oo dadaala subxaanahu wa tacaala. isagaa markaa bixinaya waxyaabaha uu isagu inuu bixiyo uu ku talagalay. marka qalbigoo dadka loo dhisaa waa cibaado aad u weyn, waa akhlaaq aad u wanaagsan. qofka muslimka in qalbiga loo dhiso, quluubtaas dhibaatadu ku imanayso, waa shay lagama maarmaan ah. rasuulka sala allahu alayh ali wasalam xadiidkan fiiri, wuxuu rasuulku leeyahay axabu nnaasi ila allah anfacuhum linnaas. dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay, xag ilaahay waxaa loogu jecel yahay qofka dadka ugu waxtarka badan xagga diinta iyo xagga dunyada. wa axabu alacmaali ila allah, acmaasha ilaahay xaggii waxaa loogu jecel yahay suruurun farxad tudkhiluhu calaa muslimin, qof muslima aad qalbiga u gelinayso, qof muslimo aad ka farxinayso. waa acmaasha ilaahay ugu jecel yahay wey, waad qalbiga u dhusayso. aw takshifu canhu kurbatan, ama kurbo iyo kulayl iyo dhib haysto ku taagan baad ka faydaysaa. hadday tala u baahataad ku biirin, hadday waxtar u baahataad siin. aw taqdii canhu daynan, ama dayn lagu leeyahay culays ku haysa ayaad ka bixinaysaa. aw tatrutu canhu juucan, ama gaajo ayaad ka caydhinaysaayoo isagoo gaajaysanoo baahan ayaad raashin u qaadaysaa, waa dherginaysaa, maasha allah waxbaad siinaysaa. qalbigii baa markaa u hagaagaya. markaas rasuulku si uu inoogu booriyo arrintaas ayaa wuxuu leeyahy, wuu dhaaranayaa, wala in amshi, ilaahay baan ku dhaartay inaan socdo, maca akhin lii fii xaajatin, qof walaalkaya oo dan iila yimi, dantiisa inaan wax kala qabto kala shaqeeyo, ayaan wallaahi axabu ilaya ka jeclahay min an actakifa fi hada almasjidi shahran fi masjidi almadiina, masaajidkaygan madiine ku yaala bil inaan ku ictikaafo oo aanan dibadda uga bixin, oo ku cibaadaysto, oo ku qur'aan akhristo, oo ku salaad tukado, oo ku ducaysto, oo ku wardiyo, oo cibaado aan u fadhiya bishaa waxaan ka jeclahay qof muraad iyo dan uu iila yimi aan muraadkiisa u qumiyo kala shaqeeyo nebigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, oo dabeetana qofkaasi qalbigiisa ku farxo. rasuulku markuu taas inoo sheegay ayuu haddana wuxuu sheegayaa faa'iidada aakhire laga helayo. waman mashaa, qofka socda, maca akhiihi fii xaaja, walaalkii xaajo iyo dan la qabta, xataa yuhabbitahaa lahu, ilaa uu dantii iyo xaajadii walaalkii u sugo, habbata allaahu qadamahu yowma tazuulu alaqdaamu, ilaahay qofkaasi wuxuu sugayaa gomadiisa iyo lugtiisa maalinta aakhiro ee simbirixashadu badan tahay, oo dad badani xagga naarta u daadan doono, oo dad badani miisaankoodu liici doono, badbaadu isaga qofkaasi gelaya. xadiidka waa xadiis saxiixa, darajadiisuna waa xasan. sida awgeed walaalka muslimka ahow, hooyadaa adiga ku dhashay hadday nooshahay oo joogto, waxay hooyadaa kaaga baahan tahay qalbigeeda inaad dhisto, baari u noqotid, warkeeda maqashid, la tashatid, ku xidhnaatid, wax tartid, bariidisid, ku dhadhowaatid, la sheekaysatid, la saaxiibtid. hooyada qalbigeeda inaad qalbigeeda ilaaliso oo qalbigeeda dhisto, qalbigeeda kabto, waajib bay kugu tahay. walaasha kula dhalatay, walaalka kula dhashay, xaaska kuu dhaxday ee ilaahay ubadka kaa siiya aqalka kuu joogto, kulligoodba waxay u baahan yihiin qalbigooda inaad ilaaliso, qalbigoodana aad kabto haddii wax ku yimaadaan. ehelkaaga, qaraabada iyo riximka aad ka dhalatay, xaajada iyo baahiyaha iyo duruufaha ku imanaya inaad wax kala qabato kabto. walaalaha muslimiinta ah, dadka jiiraanka ah, ummadda meel kugula nool, ciddii ku soo mudataa, intuba iyaduna waa caynkaas oo kale. waana arrin wanaagsan oo rasuulku sala allahu calayh wasalam habdhaqankiisii taariikhda siirada markaad fiiriso cajaa'ib bay leedahay. tusaale aan soo qaato, waxaa ka mid a tusaalaha xadiidka ibnu xibbaan uu warinayo,
maalin maalmaha ka mid ah ayaa saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ahaa xagga muuqaalka nin aad caataw ah weyd ah ayuu ahaa cabdullaahi ibnu mascuud aad weyd u ah iyagoo rasuulka la socda koox saxaabo isaguna ka mid yahay ayaa waxay ku soo baxeen meel caday ku yaallo geeda cadaya ku yaallaan dabeetana dabeelina waa dhacaysaa saxaabigii wuxuu damcay in uu laan cadaya ka soo gooyo geedka isaguna qayb qaato rasuulkana siiya sallallahu alayhi wasallam dabeel xoogina waa dhacaysaa geedkuna xoogaa waa ka sarreeya saxaabiga markaasaa wuxuu leeyahay cabdullaahi mascuud geedkii markuu ka goosay isyiri oo caday rasuulka uga soo goo nin caataana wuu ahaa dabayshii baa ku soo dhacday markaasay dhudhumada isugu dhufatay marka dhudhumada isugu dhufatay fadhaxika alqawmu min diqqati saaqay saxaabadii kale baa qosol la daadatay ninka dee caatada ee dabayshu warfisay ee lugaha isugu garaacday ee si wacan laantii u jari kari waayey rasuulku markuu arkay qosolka lagu qoslay itaal daradiisii iyo cadaygii uu goosanayay ayaa rasuulku wuxuu damcay inuu qalbigiisa dejiyo oo saxaabadii ku qososhayna aanu cudur u qaadin isaguna aanu cudur u arkin dhudhuubnaanta iyo waxa ilaahay baa qofka abuuree aanu cilad u qaadin markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma yudhikukum wuxuu rabaa inuu dareenka cabdullaahi ibn mascuudna soo jeediyo jawaabta uu bixinayana cabdillaahi maqlo saxaabadan iyo cabdillaahina cudur dhexdooda aanu ka dhalan iyagana aanay arrinkaa dib ugu noqon oo qiimaha cabdillaahi ogaadaan markaas wuxuu ku yidhi maa yudhikukum min diqqati saaqayhi idinka qoslin maayo ninkaa dhuudhuubnaantiisa uu addimadiisu dhuudhuuban yihiin waxaan ahayn idinka qoslin maayo waaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay innahumaa labadiisaa lugoodee dhuudhuuban dhudhumadiisa ninkaasi ad arkaysaan athqalu fi lmiisaani min uxudin buurta uxud miisaanka ilaahay agtii waa kaga culus yihiin buu nebigu sal alla alay wasalam marka xagga ma aha miisaankan kale miisaanku waa xagga qalbiga iyo caqiidada iyo iimaanka ku jira buurta uxud wallaahi waa ka culus yihiin miisaan ahaan labada adin haddii ilaahay agtiisa la saaro nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh saxaabigii waa farxay marka dee qalbigii waa degayo wax ciladii meeshii kama jirto ayib innaga hadda waad aragto naanaysaa la isugu yeedhaa ilaaha amarkii dadka meeshuu iinta ka leeyahay baa naanaysta loogu yeedhaya waa nooc mushkilad ka mid ah saxna maaha shareecada oo ilaahay waa inoo diiday alqaabta xunxun in la isugu yeedha naanaysaha ilaahay waa inoo diiday subxaana wa tacaala marka haddii xitaa adiga hortaa qofkan la oran jiray naanays xun dee ha ugu yeedhin qofka iska ilaali waxay yidhaahdeen oday baa wuxuu halhays u lahaa erayga la yidhaahdo baga niman baa cishadii dambe u soo ashtakooday oo malaha inankiisii bay wax ka cawdeen oo wax ku sameeyey markii xaajadii ergadii loo soo fadhiistay oo looga ashtakooday inankiisii oo warkii uu dhegaystay jawaab baa marka la sugaya soomaa ninkana muxuu halhays u leeyahay baga markaasuu wuxuu yidhi baga way idinku wacantay waxa idinku dhacay way soomaa micnuhu nimankii waa muraara dilaaceen waa ninkan inta u dacwooteen oo ashtakada u tiini ergada waaba idinku wiirsanayaaye wixii inankiisa idinku sameeyey iyagoo dee kaa kici lahaa gogasha ka kici lahaaba waxaa lagu ninkani waa bagadu waa iska halayse bala ma jirta ee hawsha waa soo dhawaado oo hawsha waynu gelaynaa waa caynka hadallada marka aan qalbiga jabinayana afkaaga ka ilaali oo dadka ha ku odhanin maxaan ku idhaahdaa naanaysaa xunxunna dadka ha ugu yeedhin tusaale axaadiista rasuulkani weli dhex soconnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiiska alimaamu tirmidi uu soo saaray darajadiisu ay xasanka tahay anas ibnu maalik baa arrin cajiiba ka sheekaynaya anas ibnu maalik wuxuu leeyahay balaga safiyata binti xuyayin islaantii rasuulkee safiya la oran jiray oo ina xuyayi ahayd ayaa waxaa soo gaadhay waa laba xaas waa xaas rasuulka uu qabo safiya binti xuyayi ibna akhtab alyahuudiya oo aabbaheed yahuudi buu ahaayo rasuulka xaasaskiisii inantaasa yuhuudna ahayd soona muslintay waxaa soo gaadhay xan ay xamatay ina cumar binu khataab oo lala qabo anna xafsata qaalat canha xafso inay tidhi iyadoo ka warramaysa iyada
bintu yahuudiyin waa inan yahuudiyada ma annagayna gaadhi kartaayoo aan yahuudi shaqo ku lahayn dumarka la isla qabo moogta waxbaa ka dhexay dangalooyin bay Soomaalidu yiraahdaan dangaladu waxa way dan baa kala gashay dumarkan rag bay nin bay isu keenay dantoodu ninkaas ay ku xidhantay ninka dantiisuna iyagay ku kala xidhantay marka waxa la rabaa ninku hadii uu nin mas'uul oo reeraha isku dhaqi kara yahayna ilaahay afar buu ku baneeyay subhanahu wa ta'ala afartan la sheegay waa lagu baneeyay nin kasta ma aha hadaa miskiin tahay waxba dhaqi karin laba islaamood aadan isku wadi karin oo maamuli karin oo kala duwi karin isku hagaajin kareenin miskiin baa tahay xabadaada agteeda ka wardi taada iska ag hayso taada iska ag fadhi iska barakayso hadaa laakiin xilkan qaadi karto oo mas'uuliyadan qaban karto 3 iyo 2 iyo 4 wixii awood iyo caafimaad ba aad u qumi karto iyo cadaaladba de la imow oo samee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka miisaal ajiib ku ah dhaqanka iyo qoysaska wanaagsan iyo see loo dhaqayo rasuulku Anas ibn Malik wuxuu leeyahay fabakat way oydi fadakhala alayha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa hiya tabki rasuulka u soo galay iyadoo ooyeysa Safiya faqala ma yubkiki Safiya maxaa ka oohiyay قالت لي حفصة إني بنت يهودي ورما يترسوي حفصة waxay ugu tiri yahuudiyad weeyaan inantaas yahuudi baa dhalay yahuudigu si sameeyay waliga wax khayr daran iska ahaayo wixii diinta ka leexda wax iska khayr daran way arintaas muraad dilaac ka tahay gabadhi rasuulka sallallahu alayhi wasallam mowqifkaas oo kale waa mas'uulki ummadda xaasaskana isaga ka mas'uul ah suu rasuulku arintii u hagaajiyo fiiri قال صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة النبي أديكو إلا قبضها وحالة دوري نسب كيدي موقته أديكو وحاته إن النبي سكدا في يهودي وحنا لقوش كينا يه نبي با كداري أوجو أديكو يعني محوجة ده أوجد بهارون ابن عمران هارون ابن عمران بأوجد ده أديكو إن النبي باتهاي هدي يهود نما الله يسكت دليل أيوه oo rasuulkaasi ba yahuudi buu ahaa bani israa'iil Muuse iyo Haaruun iyo tarankaas oo dhan iyo wixii ka soo farcamay de wax eeday ceeba kuma lihid saasuu ku yiri wa inna ammaki lanabiyyun adeerkaana waa nabi wa Muuse bin Imraan qalbigu dajeenay adeerkaana waa nabi wa innaki la tahta an-nabiyyin nabina waa ku qaba sallallahu alayhi wa sallam خلاص gabadhi biya lagu shubay qabow waxa shayba tarankaaga meeshaad ka soo jeedid awowga waa nabi adii alla ku reey adeerka waa nabi nabina waa ku qaba nabiyada lagu khatimay oo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam de hadal kama dambeyn oo hintii waa ingegtay way faraxday thumma qala ya markay la hadla hadayde xafsa haday oo hawshan soo shiday Sooma thumma qala ittaqillaha ya xafsa ilaahi ka cabso jooji waxaad wado sheekadan waska tuurka xafsu aad wado jooji gabadha hadamqin mar dambe hawshi waa xaliyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam bal u fiirsa marka say rasuulku qalbigeeda u xaliyay oo gabadha qalbigeeda u dhisay marka hadii marka qaar kood adoo reeraale islaamu madax isla galaan waa inaadan la kala safan ee waa inaad kala aslaaxisa oo kala hagaajisa weeyaan ciidan Soomaalidu ninba islaama uu qabay iskoolaadkan ku dhigan jirnay fasalka shanaadii ma waxay ahayd كل دكسة ده حفظك شنادي إحنا كل جين شرنا مالينه حكومة الصومالية غير نما إسلامي سوحي كل بين أفر دمر قبيمي يبود جنايو إلا وني هرت مدة عشة إن هذا نوع عديسان ودونين سكمت شرنا النجو مدول الواد ده ليس لكن هذا ورك عديه اللي أفر تبغى هذا يكوه يداني صبح الدم بيقول أرداء جيرة يجوك عليه ساك وركين ولا صواف شرية أرداء جيرة يجوك عليه أرداء جيرة يجوي مادين مركز سيري أفرتين نبأ وحبان يدين شيء مدة أن شعله أنا قاعد تابنايا لكن بشرطي مدة أن تابتا وإن أنا شيءين أرنتا سرتا وإن يقرسا حقا بريق قرح ذو كسب بحضه وشيست أفرتين بقى أفرتي وسيت شيء دي أفرتي واتابت بلنك عقلي جزفير أدو حقا واحد دقيقة ركع سكلوي حقا إسكدول كأحمد دقيقة نكا سكلا أفرتي واتابت مدوا دول عدين سلكا ودقاق أو أقل كيديو ريه هدي وحيد وكلا دقاق مدوا اللي مركب محي هاي ستافرينتي وضيق أدو كتابته شبدو أفكا جايسو هالشيء سومت شديد مركب حويان رسولك صلى الله عليه وسلم ساس وقلبي أودي سيشري مثال كهردان أودي بتابت حاجة كلا
weli waxaan ku dhex jirnaa axaadiista rasuulka suu qalbiga u dhisi jiray ummadda. waxaa dhacday ninkii saxaabiga la oran jiray Cikrimata ibn Abi Jahl. ninka waxa dhalay Abu Jahl waa garanaysaan. waa ninkii nabigu yiri fir'aunu hadhihi al-umma. ummadan fir'aunkeedu waa Abu Jahl. inkaarta qabay ninkaasaa ninkan dhalay wuuna soo muslimay. ilaahay amarkii caruurtiisii waa muslimeen. isagana dawaatii Badr lagu dilay. qof kasta waa garanayaa. al-Imam Hakim kitaabkiisa al-Mustadrak la yiraahdo ayuu qisadan ku keenay oon ka soo naqlinaynaa. wuxuu yiri anna Cikrimata ibn Abi Jahl radiyallahu anhu lamma dana min Makkah markuu Makka u soo dhawaaday markii Makka la qabsaday wuu cararay watuu doonida raacayo lagu bixin maayo isiriyo adigu dabeetana waa la soo celiyo islaantiisii ka hor muslintay baa soo sabtay oo qalbiga u dajisay waxba lagu yeeli maayo kaalay waa caynkan xagaa ya rasuulka waa laga la hadlay islaam hadaad muslintay cid wax kuma haysato dee waa soo dabtay oo waa keentay islaantu sideedaba iyo qofka dumar ee xaaska ahi sida ninkeeda loola hadlo way taqaanaa ee meesha laga qabto. dabeetana Makka markuu u soo dhawaaday ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisu la hadlaya marka yaatiikum Cikrimatu ibn Abi Jahl waxa idin iman doona ninkii Cikrima ibn Abi Jahl ahaa mu'minan muhaajiran isagoo ilaahayna rumeeyay haddana muhaajiro soo hijrooday falaa tasubbu abaah abihi ninka ha caayina waxyeelo weyn buu islaamka u geystay ninkaas abihi oo wax badan baa loo tirinaya dhibaato ah intaasoo saxaabi dilkood intaasoo khasaara loo tirinaya isaga dhalay wax ninka abihi soo hadal qaadina bal u fiirsan nabiga sallallahu alayhi wasallam tudaalka iyo ilaalinta dadka dareenkooda iyo qalbigooda iyo sida uu kabaya saxaabigaas haddii aan la idmayo qalbigiisa laa tasubbu abaahu abihi ha caayina. markaasaa wuxuu rasuulku tilmaamay sababtu u leeyahay fa inna sabba al-mayyit ayda qof dhintay la caayo yu'dhi al-hayy kan-nool ee ay wax wadaagaan bay dhibaysaa walaa yablughu al-mayyit kii dhintay aydu ma gaadhiso. hadaad kan caydo kii dhintay hadaad caydo iyo dhamqaysaa dhibaysaa walaalkii ama inankiisii ama inantiisii ama in adeerkii ama aqribadiisii bay dhibaysaa oo arintaas way ka muraad dilaacayaan. marka haddii qof dhinto inaga dacarta qof baa dhimanaya muslim ah waxa laga yaabaa qofkaas in uu meel ku xumaa dhici karta qofkii marka waa la caayaya dadkiisii maqlaya miidiyaha loo soo fadhiisanaya sax maaha aydaas adaa un badambi ka raacayaaye qofkaasi ma gaadhayso dadkiina cudur baa ku dhacaya dhexdoodii waxay u qaadanayaan qaar badan oo kamidii inta hada shay mooye in badan waxaan la aamusan inay jiraan ummadii oo dhan bay ka anfariirayaan oo ka yaacayaan. markaas marka waa arrin aan rabno inaynu aad iska ilaalino. waxyaabaha ugu cajabta badan ee xadiidka nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam waxa kamida xagga qalbada dhisideeda ah xadiidka al-Imam al-Bukhari Zayd ibn Thabit xadiidku warinay wuxuu leeyahay amla alayya rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu ii yeedhiyay aayad quraan ku soo degtay inaan qoro la yastawi al-qaa'iduuna min al-mu'miniina wal-mujaahiduuna fi sabiilillah masina kuwa fadhiya jihaadka marka loo kacayo ee muuminiinta kamida iyo kuwa jihaadka u dareeraya kuwaas ilaahay jidkiisa kuma sinna wadadka caafimaadka qabay lixaadka qabay ee fardaha fuulayay ee dagaalamaya laga hadlaya. saxaabada maxaa ku dhex jira marka qaar curiyaama baa jira waa ka dhutiya qaar indhala baa ku jira oo aan qoladan geli karin Soomaalian garan sida awgeed iyagu way ka harayaan. fajaahu ibnu ummi maktuum nabigu waxa uu yimi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Maktum baa u yimi wa huwa yumliha alayya isagoo rasuulku aayadii saxaabiga u yeedhinayo saxaabiguna uu qorayo ayaa muadinkii indhoolaha ahaa nabiga isla soo taagay sallallahu alayhi wasallam. aayadun iyay ka hadlaysaa dadkii caafimaadka qabay ee lixda lixaad u dhameystirnaayeen bay aayadu ka hadlaysaa. ninkanna waa nin lixaadkiisii kala dhantaalan yahay soo ma jeedid. faqaala yaa rasuul allah markaasuu wuxuu rasuulkii ilaahayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay law astatiicu aljihaada la jahadtu haddaan awoodi karayo jihaadka fardaha fuuli karo falaadha gani karo ii muuqanayaan gaalada waa dagaalami lahaa. wa kaana rajulan acmaa wuxuu ahaa nin indhala. qoraalkii aayaddu waa socda فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم إلهي وحكسه دجي رسول كيسا
وفخذه على فخذي يدو بودد الرسول بودد إذا أي دوشا كسارنتو يعني سكودو ونوساك فردينو فثقلت علي ويقول صلاتي بوددي سيو وحي رسولكم مركا الوزو دتشيو هدو هلفو شيء هينا هشو أفر تأدين بينت أدين بميل ديكتو أي وحي كسيغان جيرتين أدين مدو شبان هدي قف أكفر ديو أو قفك كلا أدين كيسي كودو يهينا وعسوران جيرو قفكو أدينكو أرمو كوشبا علايسكا ودريميو هدو رسولكو كليجي يهينا ديدid باسا uga soo daadan jiray marka saxaabigu wuxuu leeyahay adinkii bawdadu inay jabto khiftu an turadda fakhidi waxaan ka baqay bawdadeeda in la burburiyo ay burburtaba cadka iyo laftuba isku shiidanto culeyskan dareemayo thumma surriya anhu dabeetan rasuulka waxyigi baa laga fayday oo waqtiga waa dhamaaday waa laga qaaday fa anzala Allahu azza wa jalla ghayru uli darari كوا أن علّها إيو دبت قبين كوا موياني كوا لقى رسمت غير أنا هين أولي الضرر كوا أصاحبك دبت أصاحبك يعني لحد كود الله أما نافذة أما بكانك أما عندها لا ولا قرر بسحابي سمعت قلبي سمرك سحابي آيات ما قال رسولك ويمي صلى الله عليه وسلم قلبي وأودك أو كوا إلهي بعذر داري سبحانه وتعالى مركا أفيرسو سيد إلهي سبحانه وتعالى فوق العرش سحابي قلبي سأكبيو أنا الشرعيي إلى قيام الساعة عدكستو مسلمين تكمدوه لحاد كودو كردن تاليه وفيرسو هرنتاسي وحويه وأرهن إنه كو عقل قاضنه أباهن قديما وحديثا أين كدقنا أباهن وحورنشرين علماده يددك أهل الحكم كأها وعيراد من سار هذا الحكمة له من سار بين الناس جابرا للخواطر qofka dadka ku dhexnool ee ummadda dhexdeeda la dhex qaada ee la dhex socda dadka quluubtooda inuu kabo adrakatu inayatullah wa huwa fi jawfi almakhatir ilaahi ilaalintiisa iyo xifdigiisa ayaa qofkaasi haleelaysa meel khatar ah markuu galo khatar kasta markuu galo ilaahay baa isna badbaadinaya maadaama uu dadka quluubtooda culayskii ku yimaada fudaydin jiray oo qalbiga dadka u dajin jiray taasa ilaahay sameeynaya subhanahu wa ta'ala kalmadeena baraarujin bay ahayd iyo wacyi gelin intaasaynu ku soo koobaynaa allahumma